ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan saldhigga degmada Dayniile ayaa waxa ay gacanta ay ku soo dhigeen eedeysana way ugu dambeeyay baxsad ka ah lamaha amniga waxaana eedeysanahan lagu magacaabaa Mahad Maxamed Xasan kaas oo laba habeen ka hor degmada Dayniile ku dilay marxuum lagu magacaabi jiray Muscab Xasan Muuse isagoo dilkaasi u adeegsaday toorey qoraal ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa lagu sheegay in eedeysanahani uu ku jiro gacanta booliska waxaana intaasi lagu daray in eedeysanahani loo gudbi doono maxkamadda awood u leh si sharciga loo marsiiyo ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waayay ugu dambeeyay waxa magaalada Muqdisho ay ka soo qabqabanayeen dad ku eedeysan dilal kala duwan oo ay u geysteen dad rayada iyagoo ciidanka booliska Soomaaliyeed ay shakhsiyaadka ay gacanta ku soo dhigaan ay u gudbinayeen maxkamadaha dalka eedeysanahani ayaa laba habeen ka hor degmada Dayniile ku dilay wiil bajaajla ah oo la sheegay inuu markii dibadda ka yimid isagoo ugu dambeyntii ka baxsaday halkaasi yeeshee ciidanka booliska Soomaaliyeed oo intaasi baadi goobaya ayaa ugu dambeyntii gacanta ku soo dhigay